degmada Gunagado ee gobolka Dhagaxbuur ayaa waxa laga hirgeliyay olole ku saabsan daaweynta xoolaha nool sida geela, lo'da iyo waliba ariga. Daaweyntan xoolaha ayaa laga hirgeliyay ceelasha waaweyn iyo barkadaha xooluhu ay ka cabaan ee santarada hoos yimaada degmada Gunagado ee gobolka Dhagaxbuur. Santaradaas oo kala ah Qaloocan, Kortad Dheere, Balisareedo, Wargaadsan iyo santarka Farmadow. Ololahan ayaa wuxuu ahaa ololihii ugu ballaaran hirgeliyaan tan iyo markii maamulka dibcurshadu ay howlahooda ka bilaabeen degmada Gunagado. Daaweyntan ayaa dadka xoolo dhaqatada ku dhaqan degmada Gunagado ayaa waxay u soo dhaweeyeen si aad u ballaaran iyadoo hadda ka hor la siiyay wacyigelin ku saabsan inay ka faa'iideystaan tallaalada kala duwan ee xoolaha iyo waliba daaweynta. Ololahan oo socday muddo 10 cisho isla markaana ay fulinayeen dhaqaatiirta xoolaha ee ka tirsan xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reemiga ee degmada Gunagado iyo dhaqaatiirta loo yaqaan Cowsis ayaa waxa lagu daaweeyay xoolo ka badan 64300 oo neef oo isugu jira geel iyo waliba ari. waxaana kaloo jira dayactirro kala duwan iyo waliba nadiifin lagu sameeyo barkadaha waaweyn iyo kuwa dhexe xooluhu ka cabaan. waa kan madaxa xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reemiga ee degmada Gunagado ee gobolka Dhagaxbuur Mudane Maxamed Xuseen Cabdi oo ka warbixinaya howlaha u dambeeyay ee ku saabsan daaweynta iyo waliba tallaalka xoolaha iyo mid ka mid ah khabiirada xanaanada xoolaha ee isla xafiiskan. anagu daawo hadda waxaan ku fulinay campaign oo aan qabaleeyaasha oo dhan ka fulinay marka adigu 4,540 ayaanu daweynay intii rubucan ahayd xafiiskuna qorshu leeyahay qorshe sanadeed iyo rubuciyo uu leeyahay rubuci walba wixii la qabtana waan soo gudbinaa rubuci horena waan soo gudbinay haddana rubucan waxaan daweynay inta iyadoo faahfaahinteedana aan ku sheegi doono qaybaha ay kala yihiin maani xoolo dhan inta weeye geel waxaan daweynay 7388 ari oo idaa waxaan daweynay 28550 riyo waxaan daweynay 28550 lo'da waxaan daweynay 1100 adigu dameeraha 300 adigu total marka la isku daro 64540 neef baan daweynay waxaana runtii xoolo badan ayaa la daaweeyay hadda rubci ugu dambeeyay xoolo isugu jira geel iyo lo iyo ari iyo dameero yaa la daweeyay rubci hadda ugu dambeeyay xagga beeralayda oo kale wax soo saar dhab ah oo ma garanaysaa la taaban karo oo ay soo saareen baa jira 19 motor oo loo qaybiyay waa dhaweed ayaa jirta beeralayda inkastoo shirar kala duwan iyo wacyigelin fara badan aanu siinay bulshada marka waxaa jira hadda iskaashatooyinkii aan u qaybinay motorada qaybo wax dhab ah soo saaray ayaa jira oo la taaban karo ayaa jira ta kale waxaan meesha ugu tagnay bulsho diyaar u ah inay ma garanaysaa ay ka qayb qaadato horumarka iyo geedi socodka dawladda ee halka ka jira. degmada Gunagado gobolka Dhagaxbuur waxa ay ka xigtaa koonfur bari waxaana u jirtaa masaafo ka badan 75 kilomitir waxaana xarunta dawladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ay degmada Gunagado u jirtaa in ka badan 245 kilomitir. dadka ku dhaqan degmada Gunagado waxay u badan yihiin xoolo dhaqato waxaase kaloo jira dad noloshooda ay ku tirsan tahay xagga beer